marka walaalayaal wax walba iyo tilaabo walba aan qaadayno alla ka cabsi aan ku darno markaan ilaahay ka baqno oo alla ka cabsi ku darno wax walba uu inoo hergelayaa taa horta niyada aan gelino waxa kale oo ii labaysaa oo qodobka labaad ah walaalayaal aan is dhageysano qodobka labaad waxa way walaalayaal tawaaduca ayadana aan ku darno tawaaduc macnaheedu waxa way hoos isu dhig qofka islaamka hadduu faantamo oo kor isu qaado nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis buu xuleeyahay qof hadduu kor isu qaado ilaahay hoos buu dhigayaa markaad hoos isu dhigtana ilaahay kor buu ku qaadaya marka haddaan rabno inuu ilaahay kor noo qaado oo cizi iyo sharaf inoo yeelo horta alla aan ka baqno marka labaadne faantanka iyo aan iska ilaalino iyo kor isu qaadka inaan cirka isgeyno aan iska ilaalino bini aadan baa nahay oo daciif ah marka horta tawaaduca iyo hoos isu dhigga waxay ka mid tahay cibaadaadkay ka mid tahay lagu ammaanay dadka muuminiinta ah nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa lagu yidhi waqfid janaaxaka liman ittabacaka min almu'miniin dadka muuminiinta ah waxaa la rabaa inay isu dabacsan yihiin hoos isu dhigayaan isu naxariisanayaan garabka isu jilciyaan baa la doonayaa haddaad faantanto oo aad tiraado sida hadalladii hadda meeshan oo kale ka shanqarayay ragga qaar wixii qaasan aan ahayn maxaa la yidhi صح معها marka walaalayaal waxoogaa macnaha waxa way yaanan cirka yaanan isgeynin haddaad kor isu qaado xadiiska nabiga wuxuu ahaa qof hadduu cirka isgeeyo ilaahayna wuxuu ballan qaaday inuu dhulka dhigayo markaasuu ilaahay dhulka noo dhigin marka hore yaanan faantamin yaan ummadaha aan ku macnaha waxaan tusinin waxoogaa maaragtay cagajugleyn iyo muruq yaanan tusinin aan tusinno dad tawaaduc leh oo muxuu ahaa hoos isu dhigayo markaan noqono alla ka cabsi aan ku darno ilaahay kor buu inoo qaadaya marka daarno ilaahay kor noo qaado waxa way alla ka cabsiga aan ku darno tawaaducna aan sameeyno waxa kale oo ii sadeexaysa midnimo walaalayaal midnimada waa lagu najaxaa quraanka wuxuuna leeyahay wala tanaazacu fatafshalu wa tadhhab riihukum ilaahay wuxuu leeyahay hadoodina ha iskhilaafina maxaa dhacaya haddaan iskhilaafno oo muran iyo khilaaf dhaxdeena uu ka dhaco midnimadiina burburaysaa awoodiinana way baabi ummad waxay awood ku leedahay awood iyo xoog waxay ummad ku yeelataa midnimo hada midnimo ma sha Allah qaasin waad ogtiin qolba inoo furan magac loogu yiro wuxuu yahayba magac walaahi muxuu ah lagu faanoway midnimo qaasin waad garanaysaa midnimo qaasin magacaas markaan arko aad baan u farxaa runtii marka walaalayaal midnimadii khadka iyo telefoonada nooga furneed oo wax badan aan ku qabsanay oo ognahay ilaahayna uu nagu guuleysiyay midnimadaas markii banaanka ay tahoona aan wadno midnimadaas hanaga rumowdo dhalinyarada iyo daayartada soo kacday oo hadda telefoonadan smartphone-ka wada wato way midaysan yihiin dhalinyarada way midaysan yihiin dhalinyarada way isjecel yihiin way isku xiran yihiin meel kasta kii dibadda jiro kii Yurubta meesha u dashashay jiro iyo kii Afrika jooga way isku xiran yihiin wax way wada qabtaan qofkii dhiban ee la soo dhigo way u gargaaraan marka walaalayaal sidaan meeshaasina aan oga dhameynay midnimadaas iyo kalgaceelkaas iyo jaceelkaas iyo walaaltinimadaas aan meeshaan aan isugu xiranay intayna banaanka joogtona sidaas ha noqoto intii telefoonada noocaas aan wadanin ee banaanka joogto sidaas oo kala ah inaga ahaato marka walaalayaal aad iyo aad baa u mahadsantiin ilaahay idin barakeeyo jazaakumullahu khayr waxa kale walaalayaal wixii hadal kullu inoo dambeeya alla ka cabsigaan ku dadaalno ninka walaalkeenana maanta aan soo qaadanay shakhsiyaad kadiye horta magacaas shakhsiyaad kadiye runtiisa waxaan is dhigi karaa in badan waxaan arki jiray khadadka ama telefoonada asoo muxuu ahaa sawirkiisa la soo dhigayo ama uu leeyahay muxuu ahaa governor UDA soo mehen al-adala ilaahay subhanahu wa ta'ala riyadiisi qaasin markay jahwareereen oo wuxuga macna waxa way si laga rabay raggii aan soo qaadanay ay noqon weyno jalaafada noo dhigeen ilaahay subhanahu wa ta'ala jalaafada uu naakiciye qofka uu ku falaakiin waa inuu kaco qofka waxa mar haduu kufo mar labaad kufo markii dambe waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala
uu najixinaya waad aragtay quraanjada yaryartaad aragtay shay bay wadaa oo macnaha waxa way ka awood badan waxay isku dayaysaa inay darbi saarto way la dhici oo macnaha ma saari karto way la dhici say u wado markii dambe way saaraysaa marka walaalayaal haddaan adkaysano midnimadan iyo walaaltinimadan aan wadno ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha aan rabno waan gaaraynaa marka ninkaasna waxaan isleeyahay waa nin diinta wax ka yaqaano dadka wax diinta ka yaqaano wuxuu dareemayaa xuquuqda dadka uu dareemayaa been maaha qofka hadduu diinta wax ka yaqaano oo diinta ilaahay wax ka fahansan yahay alcadaala in badan waxaan arkay siyaadkeedii wax buu soo dhigdhigaa maaragtay maruu muxaadara soo dhigo maruu xogaa maaragtay xadiis iyo wax noo soo dhigo khadadka in badan waad aragteen qofka marka hadduu diinta uu wax uun ka garanayo waxa weeyaan danqasho buu leeyahay wax buu dareemayaa bulshadaas xaqa ay ku leedahay uu dareemi karaa marka walaalayaal dadka diinta leh ayaana fahmi karaa maanta waad garanaysaan maanta dhibkana haysto iyo maxaa la yiraahdaa sidii macnaha waxa bulshada xaqooda aan laga soo bixin aad iyo aad baad u dareemaysaan oo aragteen walaalayaal marka wixii hadal kullu inoo dambeeya waan soo gabagabeynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa insha Allah waxaan salaamayaa beesha reer Qaasin bulshada qaybaheeda kala duwan odayaasha culimada diinka dhalinyarada gabdhaheena sharafta leh dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh awalan Allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh Allah inagu soo kulmiye madashan annagoo masaalixdeena iyo danaheena qaaska ka tashanayno annagoo caafimaad iyo amni qabno alxamdulillaah awalan allahaas ayaa mahad iska leh thumma kadib waxaa mahad iska leh ka soo qaybgalayaasha reer Qaasin beesha soo ajiibeen martida iyo ballantii aan lahayn maanta soo ajiibay aad baa igana u mahadsan yihiin waan kaa guddoonnay intaa kadib maasha Allah farxaddeenni maanta lama koobi karo sida wanaagsan qiimaha iyo qadirinta mudan aan u fariisanay una hoggaansanay tartiibta iyo fadhiga anshaxiisa intaa kadib waxaan rabaa in yar walaalkeen Sheekh Xasan iyo Sheekh Cabdullaahi sheekheena akhiga odayga wadaadkeena odaygeena Sheekh Cabdullaahi maasha Allah iyo Sheekh Xasan mire mawcidadii ayna siiyeen ilaahay hanaga dhigo kuwa dhageystay oo qaatay oona ku dhaqmay ayagana miisaankooda xasanaadka Allah uu kabo intaa kadib waxaan sii dhaxgalaynaa barnaamijkeennii iyo qorshaheennii iyo ballanteennii oo maanta ahayd taa marka waxay tahay ma aha wax kale waxay tahay masaalixda iyo danaha qoyska inaan ka tashano taa marka nin walba wuu og yahay Qaasin waa Qaasin Abokor danahiisa iyo howlihiisana waa u gaar tii guudna tolkeenna iyo beesheenna isku leenahay wax walbana marka hoosta laga soo dhisaa Soomaalidu waxay ku maamaadaa geedka hoosta laga fuulaa kor lagama fuulo marka waxa way arintii beesha reer Qaasin oo soo socotay oo ahayd adduunyo masaalixda waxay noqotay barnaamijka siyaasadda iyo howlaha in la isku tafaactiro la isku toosiyo bulshada iyo tolka iyo degaankana meel fiican laga taagnaado taa marka waligeed bawaanaheen haddana insha Allah taan baan sii haynaa waxaan u imaanana waxay ahayd barnaamijka marka wax yar aan rabaa inaan odayaasha khiyaarta iga dambeeyni in yar inaan ku dhufto waxoogaa warbixinna iyo meeluhu maray iyo hadda wixii halkan iskugu imaanay inaan isyar meel uga dhufto inii bayaamiyo taa muddo badan baan ku soo jirnay waan isognahay musharax baan noo taagnaay dhowr sano oo ma dhowr waqti soo tanaasulnay sidii ahaan jirtay walaalaha markii liisla istaago haddii walaalow maanta ani way berin adigu waa i qaadan bay ahaan jirtay dhowr jeer oo 3 jeer baan tanaasulnay una tanaasulnay walaalaheenna
tii markaa had u dambeysay barnaamijkii markaan keensannay oo nin walba codsigiisii meeshii la keensan jiray oo beesha tolaad loo keensan jiraan u keensannay haddii sidaan rabnay wax uma dhicin anigu waxaan nahay odayaashii ku jira geedka sidii wax u socday mar walba markii ajandhaha iyo qorshaha la galay keeni wuxuu ahaa mid aad aan looga doodi karin kan kalena waxoogaa walaalahan kalena aad buu tixgelin u lahaa taa markaa cadaaladda ka mid ma aha waana laga fiican yahay dhib ma leh haddii nin wax saluugana haddii soomaalidu waxay tiri saluuga aan loo sidcelin waa sokeeye la'aan mar haddii saluuga imaatay aanan noola sidcelinin waxoogaa haddii weli waa imaanaysaa duditaan iyo dareemo iyo madax kor u qaadmo iyo aan tashanno way imaanaysaa taladaa markaa waqti badan bay soo socotay geedo badan baan soo fariisanay tolkoon badan baan wala fariisanay markii wax badan uu isbedeli waayey sidii baan ku kala dhaqaaqnay Gaaris haddana annagoo joogno haddii minkii labada ninba waa la isla soo qaaday markaan soo qaadanay barnaamijkii halkaas uu socday wuxuu ku quruxsanaa haddii sidii ahaan jirta debni geed loo fariisto lisu imaado wax lis weydiyo garta lisasiyo kadibna marka ama aan tanaasulno ama noona tanaasulo sidii ahaan jirtay ma dhicin maxaa ka galay wax la dhaho ahaana iska dhacday taas marka waxay keentay qof walba oo reer qaasina inay daaqato u daaqsado asoo walaalnimada ka tagaynin asoo col qabin asoo cuqdad qabin rag iyo dumarba waxaa dhibtay waxba lisma weydinaay lama tashanaay lisuma imaanaay waxaan doono anaa samaynaya fartaan doona qoraya waxaan doonana waan ka samaynaya taa markaa walaalnimadana kuma jirto tolnimadina kuma jirto islaamnimadii ehelnimadii jiiraankina kuma jirto marka haddii Kenyana waan joognaa waa nin walba waa xor nin walbana asaa qardaastiisa iska leh tolkana uu madax bannaan yahay inuu tashado marka waa waajib ala shukru cidna laga baryaynin marka danaheeni ay noo soo socdeen taladeeni meelo badan bay soo maraysay tii u dambeysay waxaa ahayd wiilkeennii oo bilaa khayaar iyo si wax u dhaceba asagoon dib noogu soo noqonin haddii uun qol mar hoosteed wax la dhahay wixii Soomaali dhehaysa mar hoosteed ama gardarre qaawan wixii Soomaali dhehaysa gardarre qaawan baan nagula qaaday tii hadday dhacday haddii waan ka toobsanay waan ka tashanay go'aamo badan iyo tashi badan baan samaynay isu imaad badan baa dhacay isu imaadkii waxaan wadno waxaan ballanay taariikh 27 November bishii 11 taas maantaan taagannahay 27dii annagu waxaan soo soconnaba odayaashii gaargaar iyo guudba in badan baan la kulannay wixii dhacay dulqaadkiis nin walba haddii saa inii soo sheegay wuu dareemay waxay noqotay markaa 27kii inaan tiigsano 27kii maantaan joognaa alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska leh ajandahey 27kii beeshii reer qaasin ka soo baxay go'aamadii iyo cadaan wixii caddaay oo gaartay aan gaarnay waa kan muuqdo oo halkan iskugu imaanay ka markaa muxuu yahay waxaa way sheekhsiyaad kediya salaad al-cadaala ku magac dheer inaan u soo qaadanay baarlamaanka kursiga ijaara inuu naga matalo وكان شخصيات كدية العدالة فليتفضل مشكورة انت شخصيات وكان شخصيات هدي أنك قاسين وان سو قادني waxa walaalaheena saluuga qabaana waa jiraan oo qaasina kuwaana dhimale wajiba diba iskugu noqonaynaa insha Allah annaga soo tafactirayna waan soo dhameynayna beesha kalena bokoraadna waan u geynaynaa insha Allah tolkeena beesha samawadalna waxaan ogeysiinaynaa meela jooganba
iyo cid kasta oo maqalkeena iyo muuqaalkeena u gaaro miidiyaha inaan soo qaadanay shakhsiyaadkadii alcadaala qoos iyo guriguri albaabna insha Allah aan garaaci doono aan ugu tagayno biidnillaahi marka go'aamadii beesha reer Qaasin wixii la soo maray oo badan lama mari karo in la marona muhiim ma aha go'aankii marka aan soo gaarnay kaas way nin walbana waan gaarsiinayna baaq dheer ijaara district ahaan beesha ku nool dhammaan waan gaarsiinayna inay naga ajiibaan dalabkeena biidnillaahi annagoona meel kastaaba u garaaci doono guri iyo geedba ugu tagi doono biidnillaahi waxaa kaloon markaani haddaan nahay duqa waxaan dardaaran igaan gaarsiinaya beesha reer Qaasin dhalinyarada iyo odayaasha iyo gabdhaha dhammaan taxadar badan inaan muujino kalsooni badan inaan sameeyno inaan isku xirnaano isku duubnaano midnimada ilaalino walaalaheena cid kasta oo naga fikrad duwanna qofka ka fikrad duwan ma aha in col inaga dhaxeeyo col naga ma dhaxeeyo waa siyaasaduna saaxiib joogta ma laha Soomaalidu waxay dhahdaa siyaasadu saaxiib joogta ma la dan joogta ileeda marka siyaasadda inaan col ku nihin qofkii ka fikrad duwan ma aha waa qof kasta inaad u tanaasulno barino walaalow dhahno meel uu joogo insha Allah taxadarkiyo walaalnimadii isku duubnidii midnimada aan ilaalino wixii kalena annagoo odayaasha iyo culimada dhammaan ayaa xil naga saaran inaan geed gaaban iyo geed u fuulno isku duubka iyo isku xirnaashada beesha midnimada inaan ka shaqeyno biidnillaahi aad baad u salaamantii waan nigu hadal badiye muhiimadu waxa waaye inaan cadeyno mowqifkeena 27 November ajandihii iyo qorshaheeni ka soo baxay mar koowaad iyo mar labaad waxa waaye kursiga ijaara baarlamaanka MPga ninka aan rabno inuu matalo inuu yahay shakhsiyaad kadiya salaad alcadaala ku soo dhawow beeshaada aad baad u mahadsantihiin beesha reer Qaasin dhammaan si guudayse ninka soo socda maxaan dhahnaa wuxuu na dhaho ma wax ka dhahay wuxuu na dhaho ma wax ka dhahaynaa hadda annaga hadii oday dhaqamaad maxaan nahay duurka laga keeno oo iska kadiidanba gaari ma ka soo daadanaad laakiin xaajadan waa ogeen waan ogeen waa xaaja reer Qaasin marka waxaan waqti badan soo marnay waxaan umaleyn arrintan wax badan ka soo marnay annaga hadda waan ku soo daalnay had maxaa yeelay awal markii doorasho la qabo geed maxaa diri jiray Siinaa iyo Abalatira u dhaxay oo intii dadku isku keeno la dhahayo hebelna waan reebnay hebelna waan soo qaadnay tiimaanta waa la waayay waan ka hadalnaa umaleynaa waxaan dhahnay niman arrintan ma suura galayso ma misilaan 20 ama 30 nin oo marna hididiyay inta wadna marna inta wado ma suura galayso geedkii hala keeno rag lagu reebay ragna lagu soo qaaday tii waa wayni irdeed maxaa yeelay annaga meeshan uu kaarka ka dhici jiray wixii la kala reebayna meeshan ma lagu kala reeb jiray maanta arrintaas waa la isu diiday docdoc bay noqotay hoosh docdoc yaay noqotay haddii haatan ana hadda wiilka annaga geed lagu reebo inta lagu yeer geedkan ku reebna dhahan ma arkinba si wax dhinta amoon la noqday arrintii haday dhacday marka reer Qaasin waa qaadan waay reer Qaasin waa qaadan waay waa arrin xun oo maroo si dhib ah u keentay dadka haddii haatan fadhigan maanta loo taagan yahay meeshan maxaa waaye siyaada la soo qaatay Qaasin siyaada soo qaatay maxaa yeelay dantaada aday ku wada warsan way ka rabtay hadda maanta waxaan u malayn Qaasin meel ku maqan waa kan ku dagaalsanna waa ka irad ugu hortaagan sidii weyle la aadinay arrintan kuna uu soo xaroodo suuragal ma aha arrintaas Qaasin ani maxaan leeyahay hal barkeeda qalan tahay barkeeda ma geeda daaqdali hal barna ma laga qalan barqa geed may daaqi ma suura galayso arrintaas ma suura galayso horta muwaafaqa aan xigno sidaa danaha hadda qabsanin ku qabanay ma jiro dadkan inuu lis qadiri horta aad u fiican tahay hadda qadariski baa xunba qadariski yaa xun aniga maxay la tahay horta Qaasin muwaafaqaha xigo yuusan kala harin ama xaqadu ama xaqutee
قاسم يكل هرين هرت سياسة ضدنا ما ما هني إيه سيد الله شيء ما كله عدمت ما له قلبته نولل معها خاص وحنا نولل وكجرتم معها marka lama yaabaan maxay ilaahay horta muwaafaqaan xigno yaana kala herin kaas maqan wixii ku maqan ma jirto muxuu ku maqan aslan ba loo goosinteen waxad maxay ku maqan yihiin